بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد maanta oo maxaan ku dhahay loo astay maalinta sokorta adduunka ayaan rabnaa inaan fariin kooban meesha ku soo dhiibno magacaygu waa Maxamed Saciid Yaasiin ka howlgala National Hospital Boosaaso marka fariintan yaroo sonkorta ku saabsan baan rabnaa inaan maadaama ay maalin ay sokorta loo astay ay tahay baan rabnaa inaan bulshada fariin kooban oo wacyigelin aan u dhiibno sonkortu waa xanuun dadku ay wada yaqaaniin macaan dad baa u yaqaana dadna sonkor bay u yaqaaniin intuba marka xanuunka sonkorta si waxaan rabaa detail badan oo waxaan ma rabo inaan uga hadlo si kooban oo dadka bulshada Soomaaliyeed ay fahmi karaan baan rabaa inaan kelmado kooban uga yiraahdo xanuunka sonkorta horta laba nooc buu kala baxaa type 1 iyo type 2 wax la kala yiraahdo waa jira oo type 1 wuxuu u badan yahay dadka dhalinta yar caruurta iyo dadka dhalinta yar type 2 diabetes dadka waayeelka 45 iyo wixii ka dambeeya ayuu u badan yahay si guud labadaas ay u kala baxdaa waxa kale oo basically ku kala duwan yihiin midka type 2 la yiraahdo inay insulin deficiency uu qabo qofku insulinti dhamayd ay ka maqan tahay hormoon jirka bini'aadamka ku jira oo sonkorta control type 2 insulinkii waxa laga yaabaa inay joogto balse ay intii la rabay ka yadhahay inta badan type 2 xagga daaweynta goorta la joogo kiniiniya loo isticmaalaa meesha type 1 irbada loo isticmaalo waa si guud waa broadka aan rabo in dadku si fudud u fahmaan iyadoo details badan aanay ku jirin si dadka caamada oo aan wax badan jaamacada dhigan ama wax badan aqoon badan lahayn inay fahmaan baa rabaate levelka aan ku hadlayo xanuunka sonkorta marka sonkortu waxaan wada ogsoonahay inay dhibaatooyin badan leedahay dhibaatooyinkaas inta badan dadku hortiis la yiraahdo sonkor baad qabtaa ama sonkor baa laga helay waxaad moodaa inay xoogaa argagaxaanin dadku oo aad moodo in la yiraahdo xanuun waxa laga helay khatar waa sax oo de waa xanuun aan bixin laakiin waa xanuun lala macaamili karo lana noolaan karo mana baxdo sonkortu haddii qofka sonkor laga helo ama lagu diagnose gareeyo taas marka waxa muhiim ah inaynu wada fahanno sida guud jirkeena bini'aadanka maskaxda meesha jirka dhan maamusha waxa kaliya ay quudataa waa sonkor waxa kaliya ee energy u noqda ama source of energy ay maskaxdu quudato waa sonkor kaliya taa macnaheedu yahay ma jiro qof aan sonkor lahayn qof walba sonkor buu leeyahay horta jirka qofka bini'aadanka heer baa la rabaa inay u joogto qof walba cabir baa jira Ilaahay u fariisiyay waxa kaliya oo maskaxay quudato waxa aynu raashin ama nafaqo cunno ama waxa rabo aynu cunno waxa kaliya ay maskaxdeenu ka quudataa waa sonkorta taas marka inagoo ka duuleeyna baa waxa macnaheedu yahay qof aan sonkor lahayn ma jiro dadka marka goorma la leeyahay qof baa sonkor leeyahay qof baan sonkor lahayn see la oranayo hadii qof walba sonkortiisii uu maskaxdiisu waxa kaliya quudataa waa sonkorta qof walba oo noolena uu sonkor leeyahay cabirkii la rabay markay ka baxdo ayaa la leeyahay sonkor ayuu qofku qabaa meeshii cabirkii la rabay sonkortu inay inoo joogto Ilaahay ugu tala galay waa la cabiraa range bay leedahay range-ga markay ka baxdo oo ka badato ayaa la yiraahdaa sonkor baa qofkii ku dhacday dhibaatooyinka ay leedahay oo inta badan dadku aanay ku baraarugsanayn ayaa waxay tahay maadaama qofku uu sonkor leeyahay qof waliba xalka ugu fiican oo qofku uu la rabo inuu la macaamilo lana tacaalo lana noolaado ayaa waxay tahay inaad cabirkii sonkorta Ilaahay ugu tala galay qof walba ay u joogtay aad ku ilaaliso sonkortaada inay u dhowdahay ama joogto halka haddaad ku hayso qof aan sonkor qabin kama duwanid
aan sheegayaa dadka lagu sheego inay sonkor qabaan haddii cabirkii loogu talagalay oo qofka aan sonkorta qabin ay sonkortu u joogto ama ku soo dhaweeyo qofkaasu kama duwana qof aan sonkor qabin intaa waxa dheer waxa jidha difeetooyinka sonkortu keento oo dadku ay badanaa ka cawdaan ama noogu yimaadaan ayaa waxay tahay waxa kamida in lugaha loo gooyo dadka lugaha laga gooyo waxa kamida in dadku indha beelaan waxa kamida inay kaliya fariisiso waxa kamida inay stroke qofka ku rido waxa soo dhan maxay sameynaysaa sonkortu qofka dhiigga markay jirka bini'aadanka ay badato oo iska badato dhiigga mar walba sonkortu ay kacsanaato 500 600 500 600 ani ka degin iyo xididada meel alla meel xidid tago iyo waxay sameynaysaa inay xidho xididadii dhiiggu maray dhiigina maadaama sonkortu ay ku badan tahay wuxuu noqonayaa dhiig rib ah ama concentrate oo aad u fadhiya markaas waxa imaanaysa xididada tusaale waxaan idinku soo qaadanayaa tuubooyinka biyo maraan guriyaheena tuubooyinka ku jira biyo say u dhex marayaan wax ku sameeyay wax la yiraahdo daxal oo salkiiba gudihiiba daxal fariisanaya waxa imaanaysa tuubadii inay ciriidho sonkortu waa la mid xididadii jirka bini'aadanka ayay gudaha ka ciriiriyaysaa waxa imaanaysa in xididadii hadhow dhinaca kalena dhiigiba aad u culus oo rib ah oo dareemi karo marka sonkortii badan tahay marka waxay isku darsanaysaa inuu dhiigina uu rib noqdo oo adkaado waa aanu si fudud u qulqulin xididadii ay dhiigu marayaan inay sonkortii darbiyada ka soo ciriirido oo meeshii soo xiran difaatooyinka ay sonkori geysato dhan intaas ku meersan tahay fikradda yar inay xididadii dhiiga ciriiriso markaasay waxay ku balowdaa xididadu inay xirmaan midba midku ka yar yahay xirmaya kan maskaxda kuwa ugu yar baa soo xirmaya kaliyaha kuwa ugu yar baa soo xirmaya lugihii kuwa ugu yar baa soo xirmaya indhihii kuwa ugu yar baa soo xirmaya xididada waaweyn oo oortaha iyo kuwooda waaweyn oo baranjiyada waaweyn kuwaas inay xirmaan oo ay sonkortu ay ciriiriso oo xidho waqti badan bay qaataan laakiin kuwa yar ayaa hadiibana soo xirma inta maxaa dheer goortii meeshii dhiigii tagay uu yaraado yaa waxa yimaada in supply-ga uu ku yaraado ka soo qaad tusaale ahaan waxaynu aad ugu aragnaa in dad qof sonkor intay ku dhacday lugta laga jaray maxaa sababtu tahay lugtii dhiigii baa ka xirmay xididadii yaryaraay oo faraha tagay baa soo xirmay dhiig meeshii tagi maayo dhiigu waa waxa nafaqada inoo wada waa waxa difaaca jirka wada waxa imaanaysa qofku inuu neerfayaashii lugta ay lahayd in kabuubiyo gasho qof waxa aad u aragtaa in qofka inuu kabuubiyo leeyahay dadka sonkorta ka cawda inay dhahan kabuubiya dareemaya xididadii jirkoo dhan maqaarkoo dhan ayaa imaanaya inay ciriiriyaan waxa imaanaysa inuu ka cawdo cabasho badan xajiin badan oo yiraahdo jirkoo dhan baa cunaya waxaad aragtaa dad sonkor qaba oo inta badan waxay ka cabanayaan maqaarka xajiin bay iga jidho igama baxdo sonkorta wadata lugihii kabuubiyada soo gashay sonkorta wadata waxaad aragtaa in qofkii goortii sonkori uu qabo ay timaado inuu lugtii dareemahaynba lugtii uu guriga deerka uu cadaan ku marmaro dhalo sadho ama wuxuun mudaan maba oga dareemiba maayaba waxa laga yaabaa cidiyaha qofku goortu iska jarayo inuu xoogaa cad raaciyo way dhacdaa dadka caadiga ah inuu goorta inuu cidiyaha lugaha iska jarayno inuu xoogaa cad raacino cadkii waxa laga yaabaa inuu dhiig yimaado qofka sonkorta qaba intaas laga raacaa inuu kaliya cidi yar raaciyo waxa marka la sameeyo cidiyaha goorta aad lugaha iska jaraysaan dhinacyada ha u raacina toos u jar guriga markaa joogto cadaan guriga ha ku marin marka sonkor qabto cadaan guriga dhexdiisa xataa deerka ha ku maraan marinaad oo cad mar walba kaba ku soco sababtu waxay tahay lugahaagu dareen ma leh neerfihii kabuubiya gashay sonkor baa fariisisay dareemi maysid haddii bahal ku qaniino haddii qori ku mudo haddii dhalo ku sadho intaba dareemi maysid waxaad ku baraarugaysaa inaa ama dhiigga aragto ama meeshii oo nabar maalin dambe iyadoo infection galay la arko infectionka intaa ka kaca ama bakteeriyada maadaama meeshii dhiigga tagayaa uu yar yahay difaacii dhiiggu siday oo bakteeriyada la dagaalami lahaa meeshiiba uu ku yar yahay infectionku bulbul yiraahdaa waa isqabsanaysaa lugtu jaridu halkaas ka balaabataa horta waxay ka balaabataa kaliya inuu qofka ama qori isagoo guriga dhex maraya saray ama isagoo masaajidka u socda kaba yara iska yara khafiifa xiran dhagax farta ku dhuftay intaasay ka kacdaa waxaan marka kula talinaya dadka sonkorta qaba inay iska ilaashaan inay cadaan ku socdaan
inay iska ilaaliyaan kaba furan oo aan cagaa si fiican u difaacayn inay ku socdaan inta badan kabaha kan loogu talagalay orodka iyo jooginka iyo waxa inay isticmaalaan inta badan iskaalshooyin xiraadaan waxyaalahaas oo dhan waa muhiim waxa la rabaa lugtaadu inay nadiif u ahaato sida wajigaagu nadiifka u yahay faraha dhexdooda xataa marba jeermisyo iyo fungus iyo wax ku samaysmaan cidiyuhu ku samaysmaan waxyaalaha waxa la rabaa in la iska ilaasho si qoto dheerna loola socdo qofku wajigiisa soo u nadiifiyo haday lugtiisu nadiif u ahaato nabaradu ka nabadgelaya caga cadaan inuu iska ilaasho inuu ku socdo nabaradu ka nabadgelaya cidiyaha markaad jarayso ka ilaali cididaada inaad si aad geesaha aad gudaa u gasho oo nabar isgaarsiiso dusha hore ka jar si guduba u jar ha raacin iskana ilaali inay maxaan ku dhahay aad nabar isgaarsiiso marka cidida jarayso fariimahaas oo dhan baan ugu talagalay inaan dadka bulshada sonkorta qabta aan ku baraarujino qodobadaanuna waa qodobo yar yar oo aanu aragno lana rabo inay ku baraarugsanaadaan dadka sonkorta qaba qaabkii lugaha ugu socon lahaayeen qaabkii lugta u nadiifin lahaayeen qaabkii cidiyaha isaga jari lahaayeen waxaasoo dhani waa waxyaalaha aanu aragnay inay difeeto ka timaado waxa dhacda xataa meeshaan dibadaha markaan joogi jiro wax ku baran jiray waxaan arki jiray dhul qabow lugtii goortii dhiigiiba tagayo lugtii bay dhiigu ku yar yahay waxa imaanaysa in qabow ziyaada ah ilaahay gasho ilaan dhiiga ayna kululayo oo jirka kululayo goortaad meel qabow joogto qabow badan baa ka galaya lugtii markaas waxa la sameeynaya hiitar bay dadku lugaa saari jireen hiitar buu xoogaa dabka cagiiba ilaa qabow badan kaga jira hiitar buu u dhaweynaya waxa aanu arki jiray dad lugtii intuu hiitarkii dabka dul saaray lugtiiba gubatay amba ogeyn lugtii ama qof la jooga urkiiba buu qofku dareemaa ama qiiqi baa la arkaa lugtii ama fariig gubanaya ama cagti cadaydo gubanaysa marka waxyaalahaas oo dhan sonkorta wadata sonkortana iska ilaasha andood waxa yimid nin yiri sonkortiisa waan ka cabiray markaas amse waa 600 sanadeen wareede sonkortaada waa 600 ma isku ogtahay waa isku ogahay buu waxaan maxaa dawo wax dawo ma ka qaata kama qaato waxaan yiraahdaa maxaad sonkortiisa hagaajin weyday wuxuu yiri ilaah baan u daayay ومانين دويد بدعدين إن هذا الغياب إنه عدك يجلسته أي يقول يري إله بان وداية سكرتي اللي حبقان وصح إله بان وحدوية إله بان محاك بدها تذكر بورتي إله وداسه لكن إله يوحك يري استوى سكرتي واحد رجلا داود هنا غاطه سيل دخاتير تقوس سوقاته راشين كهو أبيشوا كربوهيدرات كيريسو وحصلني هو مهم محاك بدها مركا أنت أصلا قلت لك الله إن برشة ما تكوعي كرينه هذه أدبهم هستين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته